ciidamada badda ee dalka Itoobiya ayaa la sheegay inuu saldhigoodu noqon doono dalka Djibouti. Itoobiya dal aan bad lahayn ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku dhawaaqay inuu dhisayo ciidamada badda ee dalkaasi. waxaase su'aal badan la iska weydiinayay dalka uu noqon doono saldhigga ciidamada badda ee dalka Itoobiya. haddaba wargeyska Capital ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa ayaa toddobaadkan waxa uu qoray in dalka Djibouti uu noqon doono saldhigga martigelin doona ciidamada badda ee dalka Itoobiya. dalalka la saadaalinayay inay suurtagal tahay inuu noqdo saldhigga ciidamada badda ee Itoobiya waxaa ka mid ah Somaliland, Suudaan ama Eritrea. laakiin wargeysku waxa uu sheegay in ila xoogagaal ay u xaqiijiyeen dalka Djibouti inuu noqon doono saldhigga ciidamada Itoobiya. wargeysku waxa uu intaasi ku daray in madaxweyne Geele iyo ra'iisul wasaare Abiy arrintan kaga wada hadleen safar Abiy Ahmed bishii hore ku tagay dalka Djibouti. waqtigaasi oo ay isla qaateen in Djibouti ay noqoto xarunta ciidamada badda ee Itoobiya. dalka Faransiiska ayaa dalka Itoobiya ka caawinaya dhismaha ciidamada badda waxaana wararku intaasi ku darayaan in madaxweynaha Faransiisku uu Abiy Ahmed ka codsaday inuu saldhiggiisa ciidamada uu ka dhigo dalka Djibouti kadib markii madaxweynaha geelaha Djibouti uu isagu ka codsaday Faransiiska in lagu qanciyay Itoobiya inay saldhiggeeda ciidamada ka dhigato Djibouti.